waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo ururka macalimiinta madaxda ka yahay research gurmadka iyo gargaarka ay maanta soo gaarsiiyeen walaalkan Maxamed Cabdi Xuseen Caraaye oo isbitaalka ku jira oo sida uu sheegay qaraxii dib ka dhaawacmay waa kaga mahad celinaynaa deeqda aad u badan oo aad u wanaagsan oo aad soo gaarsiiseen walaalkiin sigana waxaan u rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu caafimaad siiyo asiga iyo intii kale dhaawacantay intii dhimatayna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu naxariistiisa siiyo wasaaraddu dadaal badan ay ku gelisay sidii aan Maxamed u gaarsiin lahayn isbitaal runtii shaqaalaha wasaaradda weynay wadaan inay shaqaalanimo ugu gudmadaan wasaaraddu iyaduna sidoo kale kaalinteedii mas'uuliyadeeda qaadatay haddana waxay ku sii adkeynaysaa in Maxamed inaan u qaadi doono hadduu Ilaahay yiraahdo dalka dibaddiisa oo dadaaladii lagu qaadayna ay meel wanaagsan marayaan waxaan rajaynaynaa insha Allah waqtiga ugu dhow oo uu furuudo ugu macquulsan in loo qaadi doono hadduu Ilaahay yiraahdo haddana alxamdulillah caafimaadkiisu waa iskroon yahay ilaahayna waxaan ugu baryaynaa inuu caafimaadku siyaadiyo ilaahay caafimaad كماريا مداوي دكتور إلى أسير داوي هسنا عفمات كنهسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وحن جبنا إسبيتال كأردوغان إكستيكفير وهالكن انتصر بوقتني محمد عبد الحسين عراي وأولي صوماليات وكلها وأمي قريبي اللي كدعي أحدا تيكه الرئيسي حالتي سأقومتي إسبيتال كوهدا كجرا داوعي بدن وماركتي قبي وحنقول ما إننا نصور بوقنا ونودع عينه sidoo kale ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee FESOJ waxay maanta wareejiyeen bankaas sida maaragtay daawada wadhaca loogu bixiyo ilaa $2,000 waxaan rajaynaynaa maaragtay in sidoo kale wasaaradda iyo dadkii ula shaqeynayay iyo dhammaan taageero la siin doono wariyahaas gaar ahaan Caraaye sidaad arkaysaan waxaanu hadda joognaa isbitaalkan Digfaar oo hadda Erdogan Hospital yiraahdo ku soo booqanay wariye ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay Hotel Elite Caraaye oo u shaqeynayay warbaahinta qaranka waxaan soo raacay wariyaal iyo bahda warbaahinta Soomaaliyeed oo runtii booqasho ugu yimid balse ay u eegaan xaaladiisa ilaa mahad iska leh waxaan dareemayaa xaaladiisu micnaha hadda ay fiican tahay dadaalna loogu jiro sidii waxqabad degdeg loogu sameyn lahaa oo caafimaadkiisa dibadda loo qaadi lahaa waxaan Allah wada looga baryaynaa inuu caafimaad degdeg siiyo maanta waxaan soo booqanay annagoo saxafiyiin Maxamed Caraaye Forno oo ku dhaawacmay qaraxii Hotel Elite laba toddobaad ka hor Caraaye aad u fiican yahay xaaladiisa runtii way soo hagaagaysaa sidii gurmad iyo kaalmo loogu sameyn lahaa daweyntiisa wariye Caraaye waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay ku siiyo